shacabka ku dhaqan tuulada Gaalun ee ka tirsan degmada Mubarak ee gobolka Daawo oo warbaahinta SRTV halkaas kula hadlay ayaa sheegay in buundadani muhiimad weyn u leedahay dhanka isu socodka gobolada Daawo iyo Liibaan waxaanay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ka codsadeen in wax lagu qabto buundadani. dawladda waxaan ka codsanaynaa maadaama ay wadadan halbowlaha wadnaha gobolka Daawo ay tahay adeegga bulshada gargaarka degdega caawimaadda meesha kaliya aan ku nooleen ay wax noo soo marayeen maadaama ay tahay ummaduna hadda ay kala go'an tahay adeegga bulshada caafimaadkii daawadii wax walba dadka meesha loo soo mariyay laayahay buundadan hadda halisteeda aad idinka ku arkeen waxaan dawladda ka codsanaynaa in si degdeg ah maadaama ay arrintan gobolkii degmaba hadii uu ka weyn yahay macnaha fatahaada wadigu uu geystay iyo buundadii hadda afarteeda gees ay banaanka taallo aan gaari mari karin oo hadda hadii caawu roobda oo buundada ay naga qaadayso dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa heer deegaan in laga soo gaaro si degdeg ah naloo dayactiro buundadana tii dhagax dhigeeda la sameeyana naloo saaro kana naloo dayactiro ayaan dawladda ka codsanaynaa. saaki waxaan soo booqday waqti xeer gobola ama xeer degma oo kala socda arrimaha buundada. buundadani waxay ku saabsan tahay halkii dhuuntaha ee xiriirisa deegaankeena iyo gobolka Daawo. gobolka Daawo maadaama webigu uu ka jiro uu fatahay buundadiiba uu qalqal geliyay maadaama ay buundadu ay qalqal gashay meeshiiba labada dhanba webigu uu ka maray gaadiidkuna uu ka gooyay gaadiidku uu ka gooyay hoos webigu uu ka qoday labada dhanba uu ka maray webigii rabbaani ahaa ee bari hore la sharana uu fatahay inuu la tago ayaa diyaara haddaanan dawladda ka soo gaarin. dhinaca kale kusimaha gudoomiyaha maamulka degmada Mubarak ahna madaxafiisadka caafimaadka degmada mudane Cabdiwali Bishaar oo warbaahinta isna halkaas kula hadlay ayaa sheegay in buundadan Gaalun ay baahi weyn u qabaan shacabka dhanka isu socodka gobolada Daawo iyo Liibaan. ugu dambeyn buundadan Gaalun ayaa ah mid ahmiyad weyn u leh shacabka ku dhaqan gobolada Daawo iyo Liibaan haddii la dhameystirana wax badan ka bedeli doonta nolosha bulshada. Bashiir Cabbaas Cali warbaahinta deegaanka Soomaalida SRTV degmada Mubarak ee gobolka Daawo. agaasinka waaxda adeeg bixinta gaadiidka dadweynaha ee xafiiska ganacsiga gaadiidka dawladda deegaanka Soomaalida ayaa ugu baaqay gaadiidleyda dadweynaha